الرحمن الرحيم maanta waxay ahayd maalinta saddexaad ee wasaaradda caafimaadka ka soo qayb gasho barnaamijkan isxilqaan sida la socotaan waa aragtaan hawsha si ay u socoto qaybta weyn ay ka qaadanayso wasaaradda waxa farxad weyn noo ah in mashruucan lagu dhisaayo tiyaatarka iyo hay'adaha kale dawladda annagana mar dhow aan qayb ka noqon doono ilaahay diraahdo in qaybaha isbitaalada qaarkood aan sidan oo kale ku dhisi doono ilaahay haduu yiraahdo si ninka muwaadinka u dareemo waxa kan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hormoodaya inay yihiin wax ummadda oo dhan ay wada dhantahay hawl walbana lagu qaban karo inaan adduunkana tusino in anaga aan wax qabsan karno si caawinaadu ay noqonin mid boqolkiiba boqol dadka ku tiirsanay ay noqoto qofka Soomaaliga ay isxilqaan iyo qaabka ay wadankooda inay u dhistaan ay diyaar u yihiin waxa ugu weyn maanta halkan ii soo baxay waxay tahay casharo badan ayaa laga qaadanaya imaatinka halkan hawshiire la qabanayo dadku waxay dareemayaan in wadankooda ay gacmooda ay ku dhisan karaan ilaahay haduu yiraahdo Soomaali midaysan oo dhisan Soomaali oo soo laabata awoodeedii iyo dawladnimadeeda ayaan rajaynaynaa ilaahay haduu yiraahdo gacan banaan waxay noo qabanaysaa malaha wasaaradda caafimaadka maanta shaqaalaha emergency ku maqan waxaan ahayn dhammaantood way wada joogaan hadda sida aniga number ahaan leeyahay sheegay 90 ku dhawaad ayaa maanta joogto taasina waxay tusinaysaa qofka ugu sareeyo wasiiradda ilaa iyo shaqaalihii ugu hooseeyo reception-ka noo joogay inay halkan wada joogaan dhammaantood aan run ahaantii ay wada muujiyeen howlkarnimo iyo maxaan raahdaa inay rabaan inay gacantooda wax ku qabsadaan marka 10 weyn ayay noo ahayd ka wasaaradda ahaan iyo shaqaalaha wasaaradda waxaan nagu ballan ah Soomaaliya horteedna aan ku ballan qaadaynaa in wasaaraddeena caafimaadka waxyaalaha ugu aadan ayaduna ay dhisan doonto insha Allah taala isbitaalada dawladdu ay lahayd meelaha kale ay dawladda lahayd oo dhinaca wasaaradda caafimaadka sidoo kale waxa halka ugu baaqaynaa sida horeyna uu madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ugu baaqeen in wasaarad walba iyo hay'ad walba dawladeed ay ayaduna qaybteeda ka qaadato ayna dhisato maxaan raahdaa xarumahooda iyo meelaha muhiimadda u ah dawladnimada Soomaaliya insha Allah si mukle uga qayb galayso aad iyo aad u mahadsantiin ilaahay ajar ha idinka siiyo waxaan rabnaa inaan u sheegno groupka isxilqaan wasaaradda caafimaadka mar walba waa diyaar si kasto idin kaalmeyn karta xitaa haddaysan ku qorneen ajandaha maalintaas annaga diyaaran saaka waxaan ku faraxsanahay inay joogaan ay ka soo qayb galeen oo hadda kadibna ay idinla joogi doonaan takhaatiir iyo nurse iyo daawadooda wata saaka waxaa dhacay case hal qof oo naga mid ahaa xoogaa yar xanuunsaday laakiin waa ku faraxsanahay in markiiba loo gurmadayo takhtar uu joogo iyo nurse iyo daawooyinkii loo baahnaa waxaan kaloo ballan qaadaynaa hal ambulance oo maalin walba joogta oo idin taagan iridda inay jiri doonto oo haddii Allah naga haayo wax degdeg ay dhacaan wasaaradda ay kafaalo qaadayso haddii alla idmo marka annaga waa taagannahay na weydiiya waxa u baahantiin mar walba diyaar idin nahay waa shaqo qurux badan wadanka aan ku dhisan karno isku tashan karno aan ku faani doono ilmaheenana ay ka sheekayn doonaan u noqon doonto example fiican misaal aad iyo aad u weyn oo dhaxal gal ah marka waa uga mahad celinaya madaxda sare ee ka timid shaqaalaha guud ahaan iyo wadanka dhan in lagu wada dhiso meel walba burbursan aan isku tashanno marka aad iyo aad u mahadsantihiin waa daalantihiin waa isu soo noqon doona insha Allah taala aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum